السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى الصوماليات من البواد نقدع ونيسان واند السلامي وولالكين وريا عبد الرحمن معاوية مانتا وحا آن لجوغا إن عبد الرحمن أحمد ومقال كي سهرانتي بشان أينو يدين سو قد بني إن عبد الرحمن وحا وها ويل كان دليرادا داركيسان ويهرانتي بشان حاس كيسا كو قبتي قدها مقالة وجير sida aan horay warbixinta qaybtii hore aan idinkugu soo gudbinay isagoo markaasi dhaawac ahaa oo ku sugnaa isbitaalka magaalada Wajeer oo lagu dabiibayay maanta waxa inoo suura gashay in aan hoygiisa ku booqano oo aan xaaladiisa mar labaad dib idinkugu soo gudbino inaga oo sidoo kale la yeelanayno waraysi si markaasi uu faahfaahin inooga bixiyo xaaladiisa guud iyo halka xilligani wax u marayaan Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawow waraysiga aan rabnay inaan kula yeelano oo aan jecelnahay in aan sidii markii hore aan xaaladaada u soo booqanay oo aan maanta ku soo booqanay marka hore waraysiga iyo su'aalaha aynu doonayno inaan ku weydiino diyaar ma tahay inaan isooreysano walaal diyaar waan soo dhawaad ma santahay sida soo booqateen waad ku maasantahay soo aad u maasantahay Cabdiraxmaan waa kaaga mahadcelinayaa bal marka hore xaaladaada guud sharxaad hadii aad naga siiso tan iyo waqtigii dhaawaca uu soo gaaray ما شاء الله وما سنتها سيدي وريستي الحالة دي هذا أنقجر وانفعنا الحمد لله برواقة البشبش لب بدن وان soo maray isbitaal waan soo galay lib badan waan soo maray dad badan oo shacabkeena way la warameen aniga dantayda waan arkay shacabkana warkooda waan maqlay isbitaalna waan soo galay xanuun waan soo arkay balse laakiin waqti hadda aan ku jiro inaan taas hadda aan sheegay waxay igu tahay xaq alla dambi ay igu tahay ma iyo caafimaadka hadda aan ku jiro ayaan ilaahay ugu mahadcelinayaa shaatiga badan xiranahay caafimaadkayga muhiim yahay cideed iyo ilmahayga isku toosihiin qofkii dhibkan ii geystay aan caafimaadkiisa hadda fiican yahay oo iska caafi ilaahay aan ku dhaafay إلهي مدام أنا كده في هذا إلهي أنا بريها إني دبكاس فرحهم مرضى ما يكون دقيقين أو ندب ولا بنن أو إن مرضى بيكونوا كلن عدة أساسا أقول دقيقة يعني إلهي وبريها واتهي عبد الرحمن مركا وفلكا سيكون عايي أما بقى حاس كاجا كوجبيسي حاجات كسرناد أما حاجات جوكتي waxaan ku sugnay gurigeyga ku sugnay balse laakiin waqtiga biyaha kulalkooda ugu dhacay waxaan joogay guriga hooyaday ayaan jiifay habeen xalay amal ayaan wax yar khilaaf naga dhaxdhacay kadib khilaafka markuu naga dhaxdhacay sheedaan ayaan soo dhaxgalay ka bacdi khilaafku waa sii weynaaday sheedaanka xageeda u batay bilaabay soo turtay dhagaxay soo turtay ka bacdi waan ka cararay habeen mugdi la joogay waayo ma sheegi kari gacanteeda ma dhagaxa ku jiro ma bidiya ku jirto ma sheegi kari waayo mugdi la joogay waxay soo tuureys aniga ka cabsanay ayaan iska cararay ka bacdi habeen markii la gaaray oo 3 saac 4 saac la gaaray guriga hooyaday ayaan galay waagii markuu noo bariyay 3 saac maanan la joogo ayaa waxaan la kulmay gurigii aan xalay hooyaday la saxday hooyaday oo baxday magaalada qodaal iska rasatay ilbaabkii oo xalay saxday oo furan ee qof oo ka soo galay oo magaalada ka imaaday ay soo doomartay maamada ay soo doomartay cid ay ugu maaday cid markay ugu maaday people ho bariiska dhaday waa tahay marka biyaha Cabdiraxmaan xaaskaaga kugu shuweysay miyaad fadhiday miyaad jiiftay qaab nooceed u jiiftay ama dhinaceed u jiiftay xagee kaaga dhaceen biyaha kuleelka jirkaaga gubay waan jiifay sidaan xalay u saxday ayaan xay goor 3 saac habeenimo 3 saac maalinimo subaxnimo aniga afgan buu jiifo 3 saac habeenimo kala joogan qabowda ugu soo dhacay go'na ma haysan waayo guriga hooyaday ayaan jiifay gooy waxaad ma basiiraysan xalay aan digaal galay oo buuq san ku saacad ilistaan ku saacday go'lanan hay qabow way soo dhacay afgan buu saxday ilaahay maslaxa iga dhigay afgan buu u saxday ayaa 3 saac maalinimo kala joogo ayaa igu soo gashay ilbaabkii kor ka furtay kadib biyaha ay ugu shubtay anigana afgan buu aan jiifay fanaanad gaarna ayaan xirnay sanduurada ay xirnayd markii biyaha ugu shubtay ka bacdi waan soo booday sanduurada ay celisay sanduurada markay celisay fanaanad gaarna ay isku sii jiiday waan sii murxay meeshii ilaahay ka sii carray farmashiin meel aan dhaxda ku yeelan aaday farmashiin markaan aaday ka bacdi farmashiin xabateetan aan ka qaatay isbitaalka siyaada isbitaalka ayaan saxday sidaad ay anigoo dhaawac ay la kulmeen dadka hadda waqti xadarka ila joogo ayagoo cadeyn arkay korkayga muraxsan ee jirkayga dhaawac leh waa tahay Cabdiraxmaan waxaad inoo sheegtay adiga oo jiifto in xaaskaaga ay biyaha kugu shubtay khilaafna uu idin horeeyay marka biyaha ay kugu shubtay maxaa dareentay maadaama aad qof jiifo oo xaaskiisa oo uusan ka filanaynin in ay biyo kulul ku shubto biyo ku shubtay deeta maxaa dareentay markaas wallahi waxaan dareemay xanuun aad u weyn ayaan dareemay marka hore oo biyaha ay u dhaceen shabta hore waxaan dareemay saliid
burinaysa oo lagu dari hilib lagu dari camal oo camal oo qayl ayaan dareemay oo jirkeyga ka kacay iyo xanuunkii oo la sii kordhisamay waan soo booday banaankan u soo baxay xanuunkii ilaa muddo 3 saacadood camal waayahay oo korkeyga uu karayay meesha iyada goobtaadna waxaa ku sugnay yar aan ila dhashay isku aabaanayna isku hooyanaanayna ayaa meesha iyada ku sugnay oo guriga jifay oo soo baxay niyow kaale isbitaal geey ayaan dhahay asagana oo iga madax adkaystay wuxuu dhahay adiga doortay dabada dhuqso بعد أديك يا قف كان أتشوي كان أتشوي أنا مرة بحس قوتي أو وجعلي ده إذا أنا وجعلهم بيديسي مركان أديك يرميني ملا إسكال العديم مثل هذا أنا جوا صعر نفع ولا صعر استرقنا إسكال لكن حنوين أيام كل صوم مرة دفقة بياسي حنون قاضي سيد يقبتي واتهاي مركا أد جبتي كذب محات سميسي مدام جركاجي وداوع مي حاس كاجنا يدفع كوجيستي فعل نوعيه يا دكتور كوجيسي والله horta markay biyaha ugu shubaysan orday aan ka daba tagay haday aan qaban lahaay horta waxaan u maleeynaa markii iyada xisaab intaan fadhiistay isku xisaabtaman oo isma dhihin waxa waa haaskaada ilmiga ku haysaa waxana waa adduun shaydaanna waa jiraa adduunna waxaan laga kulmaynin malahan markiida kuma xisaabtamin waqti xadirkaas waayo xanaaqi iyo orodkii markii biyaha ugu dhaceen waayo waqti xadirkaas hadii aan qaban lahaay wixii ka soo gaar lahaay mishii kara balse laakiin ilaahay ma hadis أيضاً وابحثتي أنا كانوا محللين حجاب يجي سندرود إقامتي كبعد سيدا وكل بدباني إن حديث سندرود أسأت كبح اللهاد أو حكوا سورة قل اللهاد إن أبدا وصعتيد أو مركز حنونك كوجاري أيضاً أدوح جارسيسو ويا سندرود وان كبحي بلس لكن إذا الباب كي جيران كسي بعد أسيق شيء بعد يعني أنا مسيور دين وان قاوناي حنونك هاي إقاونان تيدا سفيري وان اسكجو وان جوي عافض أن قصقنا هذا مسكين حالات قليلين قويني. واتهاي إسبيتال كي يكون سوق هذا كليجا باتكتي مسه مركبة قفنا وعم بان نقطي أخرى لو سوق هذا. سيدا تاني ورنتك ورما إستال كا سيدا نكون شيء يرك إلا شيء سوق حافظ يجي إستال يجي مركان داي ويجدي يعني مدة حال ساعة عدة كل حسكر هذه الجبر جيران كعد يوم ما ديو سكر يوم شبتي كبعد يوم حاسكود ماشى إني عدنا إيش سعنين حال كي قف أو عدي نبى نقدر حدا dhibkan yar naga dhaxay dhacay mooyee dhib walba naga dhaxay garab isin jiri inay isla aydan ay gubtay inay tahay halka qof oo garabkayga taagnaan jiray ayaan dareemay marka waxaan is ogaaday inaan hal baal aan ahay awal laba baal ayaan ahay ida baalka labaadii heed hal baal inaan ahay aan is dareemay baalkayga anigoo qaba ayaan iska orday oo carray oo kaliya istaalka tagay luqtayda ku tagay anigoo shaatilaan ah markaad isbitaalka tagtay oo ay dhaqaatiirta ay ku soo gurmadeen misnaba qolka bukaanjiifka lagu seexiyay xaaskaaga miyay ku imaatay muddo laba maalin carar ay ku jirtay banaanka ay joogtay meel ay ku suganta lama sheegi karin balse aniga telefoon aniga ay raadin jiray oo aniga bukaan oo sariirta jif ayaan la hadli jiray oo ayaan dhihi jiray halkan booliis ayaa ku raadsanaysa aniga ayaa inay soo kaamar rabaan anigana waan ku caafi dambigaadan ilaahay ilaahay dambigaada ha dhaafa ilaahay ana kugu qabsan kara adiga iyo dambigaada ay qabtaada ilaahaygaada waan waan ku caafi ilmiyay hooyada tahay balse waxaad ogaataa inaan haddana sharaf aan ku yeeli raba ayaan rabaa oo dadka shacabka aan tusin raba inaan adiga garab taagan tahay inaan tusiyo waxaad ogaataa haddii aan hadalka ka dhex galo isbitaalka adigoo ku jirto ayay rabtay inay ku soo booqato balse way cabsanaysay cabsi awgeed ayay u imaan weyday oo ay ka cabsanaysay waxay ka cabsanaysay muddo koowaad waxay ka cabsanaysay xirma ay ka cabsanaysay in la xiro وكو مد اللبات وحي كعب سنيسي شعبك أو وضع فيرناي أو كو وضع عمبارويس وجيجي كي حيحيس أو يسبتال قلنا أوينيسا أي فيرنيسي مد سدحات وحي كعب سنيسي إنان أنيقان أيا وهوري أنك عنتي دهودي له وحي كو حساب تنتمركا إيشيكتي هدوب أسايو كو دافي أو كو عافي أو كو هيرين إنو أسايو عنتي سكاقا عرسان ربا إيسكا داسي بلسي أنيقو وحن كداسي إنان عنتي دان وأرسانينين aan xireynin shacabka xir rabana aan ka difaacaya xaqiiqan ay u soo cararto istaalkan ay ugu maad ayaan ku dhiirigelin istaalkan ay ugu maaday meeqa bari kadib ay isbitaalka kugu soo booqatay marka ay ku soo booqatay oo aad aragtay in xaaskaagii ku gubtay oo haddana isbitaalka kugu soo booqatay maxaa dareentay adiga wallahi aniga kulay waxba ma dareemin waayo wixii aan dareemay aad waxaad fasha iyo ubadkan dhalay ayaan ku iloowayaa ayaan niyadii soo gashay fanaanka cawaale heestu qaaday ayaan niyadii soo gashay ka bacda beerkayga waa iska darsaday balse laakiin qofkii waqti xadarkaas kulay oo jirkiisa xibinta kale ka sii dalqaysay oo ilintan ay ka qumaysay ayada ayay ahayd oo dambiga galay qofka hor jifana qofkeeda kalgaceelkeeda lamaanaheeda ilmaheeda abood ay gubtay
ayaa horjifa ka bacd xibinteeda ayaa danqatay ilantana way ka dadanaysay shacabkana way daawanayaan mana cuna karto oo waxa hilibka rawaaya oo afka ka mucun karto waa qof nool banaadan sida tadana waa yeeshay wayna iska daawanaysay balse laakiin aniga waxaan ku ilooway ilmihi aan dhalay waa tahay marka ay ku soo booqatay waxa jira ehel adiga isbitaalka kula joogay ama ku soo booqanayay sidoo kale dadka isbitaalka soo aadayay oo danahooda gaarka u soo aadayay misna marka ay maqlaan qof baa la gubay ku soo leexanayeen ayaa jiray bal ka waran bulshada hadal noocay ah ayaa ay dhahayeen amaba dhagahaaga ku dhacayay misnaba ehelkii iyo qaraabadii kula joogtay misnaba xigtadaada ficil noocay ah ayaad markaasi ka dareemaysay maadaama gabadhii xaaskaaga heed ay ku gubtay ay kugu soo booqatay isbitaalka iyadoo oo markaasi haddana adigii aad u fidisay cafis oo aad tiri iimaaw aniga raali ka ahay ficilka aan ka dareemay ayaa waxaa tahay hadda ficil weyn oo ka dareemay markiida ma jirin laakiin dhag ma daaquranto oo erey walba waa lagu soo tuuray waana dhageysanay waana ka jawaabay ficilka hadalka ereyga lagu soo tuuray oo wareys waxay ahayd niyo adiga gabadhan saan ku yeeshay google kuma noqonaysa iska fur waa koo waxaan dhahay la furo ma ilmaha lagu dhaafaya والله هذانا هذا الكلام اللي وصلت له وحياة ناقد سام كويشي يقول كوم نقول يسحر وحنا لما حر ويسكت جوا يسحر الماء يسكت حجوا كتب بنادم دم بوجلاء إليه يقول فينا فرق هذا وصدق هذانا أنا قال لي لما سؤالين هذا خدنا واجنا قعنت هذا وارثة بس لكن إذا يقعب سنس إن أنا قعنت هذا وارثة قعنا وارثة أنا ما يواس كافي واتاي هذا ندب أولو ير الله يبنو واحد شكتي sida aad afkaaguba ka dhabaajisay in khilaaf uu dhaxdiina soo galay oo aad mar mindi kugu soo qaadatay dhowr jeer ay garaafo ku gaarsiisay khilaafkiina guud muxuu ka bilaabmay xaguu ka soo askumay khilaafkiina ama uu ka soo bilaabmay horantii wallahi horto khilaafka meel walba horto waa iska yeelaa bilcaan oo idil ayaa saas u badan ama waa lagu wataa ama waa lagu furaa ama waa la iskaga dheereeyaa laakiin midka ugu dulqaadka yar waa ku furaya oo banaanka ka maraya hadii ay noocyada noocaas la soo baxda laakiin bilcaan oo idil ayaa sideeda xujo iska ah mid ba ilaahay qalinka toosan isku wanaajimo weey khilaafaadka noocaasina waxa way shaygeeda dhamaala ayaa dhib iskaga socdaba anigana wixii sembara aan ka raadinay oo ka dandoonay waxay ahayd in cidda reerka aniga aan aabba ka ahay ayadana hooyo ilma ay ka tahay oy xukunkeyga ay qaadata amarkeygana ay qaadata anigana cideedu waajibka aniga ay saaran oo aabanimo aan ka soo baxa iyadana waajibka hooyanimo saaran ay ka soo baxdo waayo oo waxa isfahan weeyga meesha keenay oo khilaafaadka ugu weyn keenay hadii shayga ugu yar oo bilcaantaada aad adeegsanto dirabta abay koobkaas ay keen adeegta way ku jeceshahay laakiin dhaqanka cidda ayaa ka maqan waxaan ka dareemay inay jecesha dhaqanka cidda aad ka maqan yahay dibci oo dhalatana ay tahay waxaan ka dareemay koobkan ay keen markaan dhaal laba jeer camal la iska daba laabato weydiinaysa sirtan isoo google markaan dhaal laba jeer camal la iska daba laabato weydiinaysa koobkan biyaha marka ay keen dhaal weydiinaysa waayo aniga ayaa u fiirin jiray inaan dhibin oo wax walba ay jeceshaan u suubiye hatta reerka cidda shaqada ay ka qabanayso inaan la qabta ayaan isku day jiray sirta aniga googlan jiray cuntada markaan habeenka cid ma aniga soo baxsan jiray koobka bakeeriga aniga keensan jiray hadii ay caafimaad qabtan ayada ay iska dhafana ku keenay waayo aniga soo bari mar dambana waxaan isku day in shayga raaxada aan soo bara in aan soo bari in hadana isku day aan keen ba hadana waayo way awood weys anoo qasbay waa tahay markii hore to aad is soo guursateen oo aad is dabeecad fahanteen dabeecadeedu waxa aad ku baratay ama ba aad ku ogolaatay in hadii aad la hadasho ay ka dhaga adeegto ama ba hadal ay kugu soo celido in aad u dul qaadato oo aad markaas wixii aad u baahnayd adiga aad qabsato in xagee wax iska bedeleen marka bilaadan hadalkiisa miyaa ku soo gaaray ma adiga ayaad dhibsatay xaaskaaga iyo joogto in aad adiga adeegato ama aad wax qabsato waxay wax iska bedeleen anigu runta ka waramay halkaan sheeka aan ka qaranaynin runta banaanka soo dhigay wax iska bedeleen waxa waaye qofkii oo saas isku raacnay dhan walba iskaga soo doonay dhan walba cid xiriirkeedana aan la qabanay eedana hal kaalin oo wanaagsan aan ku haysanin balse hadii aan been la sheegaynin aniga bil masruuf oo joogto ah ma haynin hal shaqo aan meel aan ku ogeyn ma jirin iska garab xamaalata iska dul xamaalata ayaan hay muruq maalata ayaan iska hay balse yoomi ayda ayaa soo baxaysay ayadoo ay garab galaysa suuqa ay soo aadaysay idoon been la iska sheegaynin jaad ay suuq u gadaysay shaay ay gadaysay ilmaha maalin joogooda ayay ila qabanaysay saasoo tay aniga marka waxaan sii fiiri
sidii ay cidooda ay ugu soo gooday sidaan aniga cidayna ugu gooy cidoodana ay isu arkirin cidayna ay isu arkirin labadayna ayaa noqonay laba isu gooday ayadoona isu go'nay anna cidaan u sheegana aan jirin idin cid ay u sheegana ay jirin ayaa waxay hadana meesha dheeraan noqotay waxa ay qaadi kartay qaad oo waxaaba jiraybo khilaaf xagga qoysaska ah oo xitaa in labadiina aad labada qoys ay isaga soo go'daan oo midba midka kale uu u sabro واتاي إن مركا أي كادي دي إن أي وحكو قبضه أدينا أتكو قسمناتي إن أد دب على سو أد بدشو دب عجا أما بدبي عدة يكون قيسي ما حد كلا قلنتي مركا markii maxaa daday dabeecadda yadi aad ku dhawadatay ama oo aad raaliga uga ahayd oo hadii aad wax u dirto ay ka diidaysay maadaama aad go'aansatay inaad bedesho dabeecadaasi marka maxaad kala kulantay oo ficil ah waan badal weey dabeecadaas markaan badal weey habeenaana kamid sheedanka waa iska jira oo soo dhaxgalay aniga banaanka iska fadhi waan boodi dabeecadii hore soo baray ayaan isku day inaan iskaga noqdo sirta ayaan heeday waan soo gogoladay jikoniga ayaan galay cashadan suurti galaaska biyaha ay galaafa biyaan soo qatay gacmaha ayaan dhaqday waan cashay ka bacdi ayada ayaan ku dhahay ambiga adiga walaalay macaanay aniga adiga adduuna iskaga soo go'an adduuna la joogna waxa waa adduun aan qarana way noo dhimantahay xisaabaadka leeyna waan hor yeelan nin inag markay isla joogaan waa inay is wanaajiyaan tababarka ilmaha saas ay ku wanaagsanaato waaye hadii adiga sida aan rabo aan ka helin adigana sida rabta adiga helin meeshan waleel ayaa ka yeelaysaa sababta iyadoo sheedaanna meesha aad soo dhexeen doono هذا اللي يوسع لسي سان ربما مالي على ورر وذا موي مر هذا باللودي كبعد وان استاغي سان درود اي كجرتا يعني او غلي waxaan ku dhaysaan dhaqan ma aha saan badaleysa ama aniga waqti siin raba inaan carabin oo xog aan ahayn oo arshayn leh jubwin aan ahayn miyaad u gacan qaaday markaas oo maadaama aad rabto in aad dabeecadii hore bedesho in ficilka markaasi aad sameysay ma cabiri kartaa waan cabiri karaa uma gacan qaadka aan qaadayna ma ahayn mid amaanta aniga niideed ka soo gooy hebel laay way ka diiday hadal ay waxaad yeeshaa u dhamay ama dil ama qarac ama lug jibi iga ma ahayn laakiin waxay iga ahayd xaq diini ah oo qofka dumarka hadii aad kari weysad inaad wuxuu u fogaatid hadii aad kari weysad hadana aad imaamadaada ku qaraadid hadii aad kari weysad hadana aad qanjurufatid halkaas ayaan rabay inaan u adeegsado sanduuqdan ugu galay waan qanjuruftay markaan qanjurufto waxay hadana aan dareemay isku diihaysa tab nooc aan sameeyay inay sameynayso hadana oo ay gacantii adiga aad damacday inaad ku soo jiido iyadana ay kugu labceliso ayaan dareemay oo ragnimo kala hadana ay garab dhigays iyadoo bilcaan bedelka iga dambeeyay leed hadana gacan laaf hadana ama gacan qaad hadana ay ugu shidarsatay marka ay ku aad aragtay inay ku gacan qaadayso tilaabo noocay hayad qaaday maadaama aad ka dhawaajisay in maalinkii oo idil ay suuq joogto nolol maalmeedka caruurta ay soo dhicinayso adigoo shaqo hesho misaba aadan helin oo aad adigaba gacanta dadka farsamada ku shaqeysta aad ahayd marka qofkii maanta idil ku soo rafaadayay ama caruurtii u soo rafaadayay markii aad go'aansatay hadana aad bal dilcigii aad ku qabtay aad ka reebtid ay hadana ku gacan qaadayso maxaad sameysay adiga ficil noocay ayaa ku dhaqaaqday ma isbedelay dareenkaaga oo ma ku gashay haweeneydaada ama xaaskaaga waxa ay kugu soo celinaysaa hadalka oo gacan qaad waa u gacan qaadkaas ugu dambeeyay markii ay labaad ugu soo celinay marsaxada ugu soo celinaysa ayaan hal rabahada ku dhaftay ka bacdeen rabahada kale mar ayaan halka rabahada ku dhaftay way shanqartay hooyadii ay jiirana lahayd maamada ayaa shanqarta maqash ayada waa caawaaday markii caawaaday maamada ayaa soo baxday iyadoo lado istaagtay iyo anigoo istaagay sanduuqska la istaagno is haysano gacmaha haysanay maamada ayaa sidoo ugu kala qabatay ka bacdi aniga habeenimada waan ororday waan fiigay markaan iyada nabarkeeda aan ka carray iyada waxaan markii hore waxay aad kaali bar qofkan ku day hadii ay wax ku keenayso bar isku bedeli kartaa iga hadii isku bedeli weysnaada inay tiitaan ogaaday nabarkeeda baan ka sii carray maslaxadana ka xigsaday hadana googasha maamada masagal waa saxday sidaan ay dhibkaan isku dhacay waa tahay marka ay dib kugu soo booqatay isbitaalka ay aragtay dhaawacaaga bulshadina ay dhaga hadalka ay idinku wado oo ay leeyihiin shacabka isbitaalka kugula sugnaa naagtii gubtay ayaa hadana hoosta uga jirta oo soo booqatay hadaladaasi adii maxay ka bedeleen wallahi horta dad ayaga oo baa go'ay oo family horta lagu gooy kara aniga ciidayda ilmeydi oo bilcaanteed hadii aan isku kabano on united aan isku naanay waan ku faraxsanahay balse laakiin family ayaa qaarkiis ku kala gooy family hadana dhamaan marka hore wada kulli dhamaan wada hay
haddana barkoodna haddana ilaahay iisoo celi barkoodna weli sida ay ku maqan yihiin marka gabadha ay ku dhaawacday qoyska maxaa ay kuula imaadeen oo markaasi ra'yi noocay ah ayay ku siiyeen mise ficil noocay ah ayay qaadeen ka qoyska kowda hore waa familiga iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo macal ragga ayay hayaan waxay dhaheen gabadhan dhibkan ku keensatay dhib badan aad la soo marteen xaajadeena isku badatay geedba geedkiisa kale loo fadhiistay waa jeclahay oo kaliya meel ma buxiso dhaqan ayaa wax tara niyo qoftan iska fududay gabar kale oo cid ayaan ku dhisaynaa lacag anaga ku raadinayna hadii aad waxaad ku dhisataa haysan iyo hadaas haysataba ku kordhayna anaga ku dhisayna gabadhan iska fududay ma ahaan weysi xir ma ahaan weysi aday ku taalaasa sameynaysa ana aqtaada ma soo istaagmeen ilaa iyo waalidkayga sidaad ayaa mowqifkoodaas ahay markii aan soo tagay hospitaalka soo carray oon cid imaaday qofta sida ay ugu soo booqato oo cid ku umaad oo isku aragna anigoo suurtagelinaya ayaan hospitaalka population ka soo dhaxbahay hospitaalkan ka soo tagay cid aan imaaday sidii ayaan adigoo dhaawacan ayaad hospitaalkii ka soo guurtay ama ka soo tagtay si ay bal gurigii ay kugu soo booqato anigoo dhaawacan oo dhaawaceen iga dhamaanin ayaan ka soo tagay si ay igu soo booqatay guriga ku umaad way imaadii gurigu marka kala tagi iyo colaada familiga midda maamada iyo midda family kala ahayd maamada waan soo ceshtay waan raali geli gabadheedii waan la raali geli way ii soo noqotay laakiin dadka kale oo qaraabada kale oo gabdhihii cid ahay ayaa weli sidii ku fog oo maamada markay magaalada ku arkaana dhahaya ninkii aaw soo noqday waa fiican yahay cidaas jooga naafti aaw ma la joogtaa waa la joogtaa laa ilaaha illa waa israacsan doontaa oo macnaha ay ula jeedaan haddana sidii u beeyeli doontaa tukala waa israacsan doontaa taas un baas gacanta ku dhimanaya ninka naagta ka furtay adiga dhale ma ku talna marka maamada iyadana kulay hadalahaas ayaa soo danqinaya ka bacdi markay cid maadana isku daysan ay dhada aniga Abdurrahman waxa deelaysaa qofkaan ma xir weysaa ma fur weysaa waa ku bariya fadlan wajigeeda iga qari anigoo sal ibaar meel aan degay aan haysanin ay erigaas ama subax kale soo baxday oo idhaahday kabta Allah ka tasarrufay cidaada la aad naagtan gabadhan idaafi aniga wajigeeda ma arki kara waa tahay intaasoo dhan markii laga soo gudbo marxalad oo waxa soo martay qof la gubay aad soo noqotay dhaawac badan baa soo martay isbitaal baa gashay dhaawacaasna waxa ku geysatay caruurtaada hooyadood oo xaaskaaga ah marka hadda sida aad sheegtay waad wada joogtiin waad joognaa ma farxad baad ku wada joogtiin ka waran bal jaceylkii hore aad u qabtay iyo ka hadda bal haddaa faahfaahin ka siiso ummadda kula socoto amaba ku daawanayso oo horena markii dhaawaca aad ahayd aan u bandhignay bal haddaad faahfaahin ka siiso jaceylka xilligan aad u qabta xaaskaaga maasha allah jaceylka xilligan xaaskayga aan u qaba horta xilli hore wixina soo maray iyo xilli hadda waxaan ku jirno alxamdulillah hadda xibinka ma jabni waan caafimaad qabaa shaatigayga suraalkaygana waa xiranahay ilmahaygana maxoogay iga xiran jaceylkaygana gacanta ayaan ku haystaa gurigaygana waa wada saxnaa gurigana waa wada joognaa booshadana waa la cunaa biyana waa wada cabnaa baahiya dharag iyo gaajo waxaan wada joognaa waa la joognaa ilkahana waa iskala qusulnaa uurkuna waa iskala dhool caadeynaa waana isku faraxsannahay alxamdulillah maasha allah cidaydana sida hadda ay tahay allah ay ugu haaya gabadhana maadaama dambi ay gashay qaladka aad ka dhacayna waxay leedahay aniga qaladku waa iga dhacay wixii iga keenay shaydaan ayay hayeen shaydaanka iga keenay aniga aan ku talagalay ma aheen tu aad shaydaan iga keenay ay ahayd waxaan ka codsanayaa dambi dhaaf inaad yaafisid oo hoosh inaad yaafisid to damba laakiin jaceylkii adiga aad ii qabtay inaan kaala wareega oo aniga gacanta ku qabto kugu maamulo inta adiga ay soo dulqaadanaysay inaan kugu soo dulqaato oo dhaxda ku xirta ayaan xilligan diyaar aan u ahay oon weliba aan kala meeliga guntiina wila ma xiratay gambada ma toortay guud kala ma sharatay intaas gacanta midi qabatay siga jeleed gacali aboobay ma tiri inaan ku dhahan balanka qaadatay marka anigana waa ku farxay hadalkaas ay soo joosay oo waa ayba ku heestay oo ay ku gabayday waa ay heestay oo ay gabayday hadalkaas ayaa marka aniga beerkiga dilahay labadeed cunug saddex cunug ay joogto waa laba gabdho iyo hal gabadhina gacanta midigta ku qabsaday wiilkana gacanta bidixda ayaan ku qabsaday midda dhinaca dhabarka ayaan saartay ayadana xabadka ayaan saartay saan nolosha noolaatay
marka Soomaali weyn meel walba ay joogto waxaan Ilaahay ka baryayaa sida tan hadda qoyskayga eedaydii family-gayda asiyay dabcigaas hadda isoo noolanahay waayo waxaan awal xoog ku raadinay ama aan dulqaad ku raadinay ay hadda sadeegano shay Ilaahay aad igu soo dilaaynaya marka dhaqanka hadda Ilaahay igu soo dilaaynaya sida toos hadda aad yahay aad Ilaahay igu haay inay faataxada igu soo maraan oo inay igu soo duceeyaan ayaan ka codsan lahay dhaawac waxaan soo maray waxaan soo maraba haddana waan caafimaad qabaa laakiin ma yahay ruuxa maanta intii جوان قبت قعدت قبت دش قاعد كرا وأدور قاعد كرا مثلا كيسمه وايو أول جوان كدش أيام قاعد جري بقول كش اللي نقص وضع صدنا أيضا ممكن يجري لكن أنت بمصير فينا أنت أنك عارف ما تقوي ونسوق هذا الجوان كان كسر دون إن شاء الله بليلة هذه بعض ما سنت هاي وان كاجم هذا علينا إن وقت جاء قاليجا أو هذا نسيسي إننا مهمة أن أويماني أن كوسو بقرني وحي هاد مركوبه رئيسه إن أن أغانو حالة دا عافماد جود يو مركلبات فعل كلبات أد قادي مركي داوع كوسو جاري إن أن أبندقنو مدة أد كإنه وحرن إن داوته iyo sidoo kale go'aanka aad ku dhaqaaqday maadaama nin xaaskiisi gubtay aad noqotay haddana maadaama adiga iyo xaaskaaga aad wada joogtaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku leenahay nolol wanaagsan oo waa hagaag daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawadashadiina kani waa Cabdiraxmaan oo ahaa wiilkii dhalinyarada sidoo kalena aabaha caruurta haystay ahaa oo ay horaantii bishan xaaskiisa ku gubtay magaalada Wajeer oo aan muuqaal horeydii kaga soo gudbinay haddana sida aad arkaysiin xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagtay oo waa kana waqtiba in la siiyay oo aan ku wareysano waxa aad sugtaanba wareysiga xigo aan la soo yeelan doono hadii uu baqadiro xaaskiisii dhaawaca u geysatay si markaas iyaduna aan wareysi gaar ah oo kan ka xiisa badan aan idinkaga soo gudbin doono inta aan ku kulmi doono wareysi xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo amaan Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.